bismillahi raxmaani raxiim daawadayaal mar kale kusoo dhawaada koorsadeeni barashada Windows 10 cashirkeena maanta waxaan uga hadli doonaa iconiskan waxyaabaha ay qabtaan iyo waxyaabaha markaas loo isticmaalo saddexdan icon 1 2 3 waa kuwa saameyn ama xiriir la leh storage-ka computerkaaga storage hadii aad maqasho waa meesha aad wax ku kaydsato ee computerkaaga ugu horeyn kan waxa ku soo furi kartaa inaad dhahdo kelig laba jeer waa kana waa desktop-kii waxyaabo badan desktop waxyaabii inoo yaalay adiga pictureska oo computerkeena ku jira android adiga waxyaabaha waa storage on wax la xiriira okay kan labaad this pc waa storage-keena rasmiga ahaa computerkeena waa 500 GB waxaan u kala qaybinay 146 GB iyo 318 GB okay sida loo kala qaybiyo iyo waxyaabo badan waa arki doonaa kanna waa recycle bin oo ah wax walba aad daleedo halka ay galayaan ee computerkaaga intaas kadib storage sida u soo furi karaa anigoo halkan taabanayo waa soo furi karaa sidoo kale anigoo isticmaalaya keyboardka computerka waan soo furi karaa storage-ka ama my pc ama file explorer-ka waxaa isla qaban doontaa calaamadan iyo calaamadan iyo haddii aad isla qabato si toos ah ayuu kugu soo furmi doonaa hadda haddii aan isla qabto waa kaasaa inoo soo furmay si toos ayuu kugu soo furmi doonaa haddaba sidoo kale waxaa usoo furi kartaa in aad timaado halkan oo aad taabato si toosa ayuu usoo furmi doonaa waa laga yaabaa inay wax ku kala duwan yihiin balse markaa u baahato this pc toos ah halkaas ayaa taaban kartaa okay this pc waxaa inoogu jira halkan waxa ugu muhiimsan ee ku jira c halka ay ku qoran tahay waa mar walba oo yacni Windows 10 computer ku shubtid meesha ugu horeysa ay ku soo bixi doontaa qaybtan iyo qaybo kale adaa sii abuuran kara haddaba halkan waxaa ku jirta program files ama waxa ugu muhiimsan ee ku jira waa Windows-ka computerkeena operating system-ka uu computerkeena ku shaqeynayo okay halkan waa desktop downloads videos downloads waxyaabaha soo dejisay oo kala kugu galaya oo computerka waxyaabaha soo dejisay wax kale adiga ku save garaysan kartaa macnaha okay intaas kadib marka halkan aa u jeedo waa meesha ugu horeysa ee kuu soo muuqanaysa markii aad this pc soo gasho ama file explorer-ka computerkaaga aad soo gasho okay waxaa jirta meel aad ka arki karto waxyaabihii ugu dambeeyay ee aad isticmaasho application ha ahaado wax kale ha ahaado sawir ha furtay ha ahaado waxaa la dhahaa quick access waxyaabihii ugu dambeeyay hadda keyboard oo mar dhow soo shiday waa kana it means quick access-ka waxyaabihii ugu dambeeyay oo mar walba aad isticmaashay ayuu kuu muujinayaa ma samayn kartaa marka in mar walba ugu horeysa uu kugu soo furmo sidaan oo kale hadda quick access ayuu igu soo furmay markii aan isla qabtay kan iyo markaan isla qabtay wuxuu igu soo furmay quick access ma ka xiri karaa right click ayaa leedahay options ayaa imaanaysaa markaad timaado quick access ayaa halkan saaran waxaa ka dhigayaa this pc kadib waxaa leeyahay apply kadibna okay markii aan soo kiciyo wuxuu ku soo kici doonaa this pc oo toos ah markaan isla qabto calaamadan iyo markaan isla qabto sida haddaba kuu muuqata wuxuu ku soo kici doonaa this pc si toos ah waxaan rabaa quick access-ki inaan ku soo celiyo waxaan dhihi doonaa right click optionsaan ku laaban doonaa kadib this pc ayaan dooran doonaa kadib quick access ayaan soo saari doonaa kadibna apply ayaan dhihi doonaa kadib waxaan leeyahay okay sida kuu muuqata markaan isla qabto calaamadihii markaan isla qabto Windows plus markaan isla qabto si toos ah ayuu wuxuu igu soo kici doonaa quick access-ka waxaan rajaynayaa in aad loo fahmo quick access-ka waa waxyaabihii ugu dambeeyay oo isticmaashay hadda keyboard iyo waxbaa noogu jira tusaale notepad ayaan qoranayaa notepad-ka markaan save gareeyo sida arkaysa waxaa noo soo bixi doono anigu waxaan doonayaa inaan wax qoro
okay noo save garay waxaan ku save garaynayaa tusaale okay waxaan ku save garaynayaa this pc imo desktop waan ku save garaynayaa waxaana ku qoranayaa anigu si toosa wuxuu noogu imaan doonaa quick accesska waa save gareeyey waa kana textiga hadda aan soo qoray anigu waxaan doonayaa inaan wax qoro textigan markaan quick accesska soo kiciyo sida aragto anigu text lahaa ayaa ii soo galay sida kuu muuqata tusaale sawirkaana kala ku laabanaya mar kale aan shidaya sawirkaan waa kana markaa soo shiday quick accesskeena haddii aan imaano si toos ah sawirka ayaa kasoo kormaraya haddaan soo weyneeyo waa kana sida kuu muuqata sawirka sidoo kale waa yarayn kartaa marka quick accesska waxyaabaha badanaa uu qabto waxaa ka mid ah in waxyaabihii ugu dambeeyey ee aad isticmaalaysay uu kuu soo muujiyo I hope in aad loo fahmay okay recycle binka muxuu qabtaa muxuu faa'iido leeyahay tusaale waxaan delete garaynayaa folderka ay ku qoran tahay Axmed recycle binka faa'iidadiisa ugu horeysa waa in wixii aad deleeday aad dib uga heli karto waa kana folderkii Axmed ee aan deleeday haddii halkan uu iga soo muuqan waayo kale tusaale wuxuu iga soo muuqan waayo kale waxyaabo badan aan deleeday macnaha waxyaabo badan ayaan deleeday waxa iga soo muuqan waayo tusaale oo kale folderkaygi oo dhawaan markii ugu dambeysay aan deleeday waxaan aanaysaa calaamadda sirjiga kadib waxaa ku qoraysaa folderkii aad deleeday sirjiga ayaa dhihi doontaa waa inoo kana folderkeeni kadib right click ayaan leeyahay okay right click ayaan leeyahay restore ayaan leeyahay sidoo kale waa markaa soo ceshanaysid waxaad dhihi kartaa delete yani waa sii deleedi kartaa recycle binka okay recycle binka wax ii yaala recycle binka oo badan ma ka deleedi karaa wax horey aan usoo dhigay ma ka deleedi karaa dabcan haa recycle binka adigoo control a dhahaya control a waa select all haddii kale waxaad dhihi kartaa drag inta halkaas soo qabato inaad toos usoo wada qabato kadibna aad taabato sidaan inaad usoo wada doorato adigoo muuska la jiidaya kadibna aad taabato calaamadda delete ee keyboardka computerkaaga calaamadda delete inaad ka doorato keyboardka computerkaaga sidaan oo kale computerada isku meel kuma wada lahan balse calaamadda delete muhiimadda inaad computerkaaga ka dooratid ama aad right click dhahdo kadibna delete aad dhahdo ama restore soo wada celi ama wada delete garay hadda waa wada deleedaya si toosa dhammaantooda afar wuxuu ku leeyahay dialog boxigan are you sure to wanted to permanent delete 498 items yes ayaan leeyahay si toosa ayay computerka uga bixi doonaan I hope in aad loo fahmay marka faa'iidada uu recycle binka leeyahay waxaa waaye in wixii kaa delete gareysmay aad soo ceshan kartid adigoo isticmaalaya computerkaaga gaarka ah ama PC-gaaga personal computer ayaa loo soo gaabiyaa PC okay calaamadda sirjiga faa'iidada ee leedahay iyadana waxay tahay in wixii aad deleeday oo kale garan weysay oo kale ka dhex aqoonsan weysay waxyaabahan ama waxa aadan ogeyn oo kale aad deleeday magaci kugu qornaa ayaa xusuusataa si toos ayaa u dooran doontaa kadibna dib ayaa u soo ceshan doontaa I hope in aad loo fahmay my PC iyo recycle bin waxyaabaha faa'iidooyinka ama waxyaabaha ay qabtaan aad ugu mahadsantahay